ahaan intii aan joognay siyaasado badan baan soo saaray national policy actigi waa soo saarnay drug policygii hadda draftkii ugu horreeyay baan samaynay waxaa kaloo la sameeyey oo imika aan intaan wasaaradda joogay anugu aad u dardargeliyey NHPC ama National Health Professional Council oo ah hay-ad 10 sano ka hor digreeto madaxweyne lagu magacaabay laakiin ineffective ahayd waan shaqaynayn imika soo shaqaysiinay hay-adda waxaa loo abuuray in ay jeegarayso dhakhaatiirta ama muwaadiniin ha ahaadaan ama dibadda ka imanayaan inuu qofkani dhakhtar yahay dadka laga hubiyo mushkilada ugu waaweyn ee jira waxa weeye cid waliba dhakhtar bay sheegatay cid waliba meel bay furatay cid waliba wax bay daweynaysaa ruwaayad maalintii darajada la qaybinayay ayaa qolada ciidamadu fanaanin ay leeyihiin baa ruwaayad dhigtay marka ruwaayaddii waxaa ku jiray mid baa wuxuu yidhi warniyo dhulkii yaraayeen masallaha ku lahaa baa ii qarxay dhulkii yaraayeen masallaha ku lahaa ayaa ii qarxay waan iibiyey xoogaa lacagaan ka helay waxaan doonayaa inaan meel aan ka faa'iido geliye ila tali soo koronay anaa kuu sheegaya guri karayso ranch cad mari cilaaj ku qora ma dhakhtar ya aragtidaada lacaga horta dhibaatadan haystaa taas weeyaan hargeysa meeshaad ka soo wareegto ama cilaaj baa ku qoran ama dhakhtar baa ku qoran ama clinic baa ku qoran waxaanu hadda ku guulaysanay inaanu helno hay-ad baan ka codsanay 7 bilood ka hor inay noo iibiso don ambulance oo ku dheereeya way noo soo iibisay bishan June aakhirkeeda oo helayna insha Allah waxaan rajaynaynaa in doontaasi dabooli doonto baahida